السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا دمان بأمضي إيكو حدن قال أhaan waxaan halkan rabaa inaan kala hadlo reer Somaliland. reer Somaliland waxaan rabaa inaan su'aalo yar weydiiyo. colaadii waxay isugu soo shubatay, waxay socotoba, waxay wareegtoba gobolka Sool iyo gobolka Sanaag iyo gobolka Togdheer inta aynu ka degno. haddaba colaadaasi ma colaad qabiil baa mise waa colaad qaran? halkaa ayaan waxaan rabaa isaaqa ayaan waxaan ka arkaa kala daadasho aad u fara badan oo ay keentay siyaasad. u malayn maayo in cadowtinimo keentay, laakiin kala fogaansho siyaasadeed ayaa keenay. runtii waxaan odhan karaa colaaddu hadda xooggeedu wuxuu ku dhacayaa 3 reer, adigu 2 reer, habar yoonis iyo habar jeclo. weliba habar yoonista bariga muuse ismaaciil iyo nimanka la Sacad Yunis oo abtiyada ayaan aad u salaamayo ayuu ku dhacayaa, iyo habar jeclo dhammaanteedba. waxayna dantu haysataa waa iyaga. wax kastaaba waxay kaaga imanayaan dusha. waxaa jirtay berigii aynu joognay kii dad badan oo isaaqan dagaal gelin baa jira, dad badan oo aan ogeyn baa jira, dad badan oo aanu saameyn baa jira. waayo wuxuu u saameynayaa qofba siduu qofka kale ugaga dhow yahay ayuu u saameynayaa. qofba qofkuu ka fog yahay wuu ka saameyn yar yahay. nin kuu yimaado, gurmad kugu yimaado oo maalin kuu yimaado mooyaane wuu ka saameyn yar yahay. waayo mana guurayo, mana qaxayo, mana tegayo. balse hadda colaadaas anigu inkastaan nabadda jeclaa oo aan mar kastaba noo jiray, laakiin waxaan arkaa reerkii dhulbahantee in la yidhi 2 sano gudahood Sool iyo Sanaag kusoo qabsada, oo markaa miyirkooduba ku maqan yahay inay meel qabsadaan. 90% dadka dagaalamaya ayba yihiin dad daroogastayaala. garaadadan iska daba hadlaya ee marra nabadda ku baaqaya, marra colaadda ku baaqaya, marra anigu ma garanayo taas lafteeda, shuqulka ma aqaani. waxaan aqaanaa dagaal ama nabad, wax ka dhexeeyaana ma jiraan. dagaal iyo nabad. marka waxaan olaa reerka habar jeclo, Sacad Yunis iyo muuse ismaaciil adeer laydin horta nin daaroodii kuma kala jeclaa isaaqow, idinmaba kala jeclaba. ama hebel habar fulaan ahaw, ama habar wacays ahaw, ama habar caynaashe ahaw, ama reer habar cawaale ahaw, absolutely isugu mid baa tihiin. maynu arag qabiil ammaan la siiyey. ciidankeenu mar alla tan yaga haystay inta way soo garaacaysaayeen in qabiil ammaan la siiyey oo ciidankiisii la ammaan geliyay miya aragteen? no. waa isugu keen mid baa tihiin. horta isugu mid baa tihiin. laakiin sasabashada iyo wax kuwarwareega iyo waxaasi waxaan jirin. isaaqna waxaan u sheegayaa siyaasadina way dhammaataa, waa laga heshiiyaa, waa lays arkaa, waxba waxaasi maaha. laakiin tolnimadu marna ma guurayso. soomaalida waxaa ku mahmahdaa nin jiirhkiisa lahayaa jiridka ma qoslo. marka waxaan doona lahaa horta habar jeclo, Sacad Yunis iyo muuse ismaaciil, idinka warankiinu waa inuu iska diyaar noqdo. waayo waaba dantaa isku kiin khasabtayba. dantaa isku kiin khasabto koonaa wada degantihiin, meel oo kala baxsan maysaan, idinmana kala jeclaa. taasi waa taa. isaaqa kalena waxaan leeyahay kolley gurmad baa maalin ka iman lahaa meesha aad joogtaan. 2 casho kama yimaadeen, maalin buu ka iman lahaa. caawimo yar oo dee bahasha nuucideedu idinkuma dhacdeene. wax la yidhi waa la noolaan. nin baa waxay wareen cuno waqti miyahay wax saas midgaan sheegano miyuu si wariyaan soo la noolaade. waa la noolaanayaa, yaana fahmo idinka tegin iyo hurgubo yaana idinka tegin. dagaalkan wuu dhammaanaya, waana laga heshiinaya, laakiin taariikh wuu reebayaa. taasaan isaaqana odhan lahaa kale. waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo ciidanka qaranka Somaliland. waana la basaasaa, waana la huwan baa nagu dhex jirta. simaanaho isugu ina cambaashe idinku dhex jira. ina cambaashe hadduu nin Somaliland dara yahay, hadduu nin yahay bahalkiya
waa in uu galbeed geysaan way ciidankiisu u joogaan way ciidanka marka telefoon looga daba diraya sarkaal baa la socda hebel baa la socda halkaas wataa gaarigaasu wataa waay maxaa loo leeyahay waa khalad nin jirkiisa laya tiris kama qoslo waryaala isaaqow dahayna wareerinina beenna haysugu ka sheekaynina ninkan waa nin jacsiyaada maantana gurigiisay ka bilaabantay hadduu markii hore huwantii xaggaa ka dagaalamayay dee maanta gurigiisay ka bilaabantay jacsiyad bay ka bilaabantay jacsiyaad waxaan lahaa horta wax lasoo wado colaadii xitaa gurigeedii baa lasoo geliyey dee wixii ilaahay inoo kala qoraynu leenahay anigu colaadda ma jecli waxaan jecla dadku inuu nabad ku wada noolaado laakiin dee haddii la garan waayo daniba iimaanka waa kaa qaadi bay tiri marka waxaan lahaa reerku dagaal buu galay habar jecloy dagaal baa gasheen idinku haddaa isku kalsoon tihiin oo aad isku mid tihiinna wax laydinka qaadayaa ma jiro wallahi derbiga baarliin baa jibinaysaan inta kale isaaqana waxaan leeyahay in madeerayaal haddaa nacaawisaanna waanu idinka mahad celin haddaa nacaawiyo tolkayo jiroo jooga ahaada oo halkiina iska jooga oo annagu waddankaanu idiin difaacaynaaye idina ku baashaalo waxa kale siyaasadda iyo doorashada waxaa ka hadla laakiin waxaan lahaa in jiirkiisa la hayaa jiriidka kama qoslo ina cambaashe waa nin dhulbahantaa waa nin jaacsiyaada waa nin maanta tolkiis ay hadda maanta gurigiisii taagan tahay yeylay taagan tahay ciidankiisa u wataana waa tolkii waa nin madeerayaalow galbeed geeya raggaa galbeed ha la geeyo galbeed hadday joogayaan in cambaashe hargeysa iska tago ciidankana guutooyinkaa lagu kala dardaro ya hadday tolkood raacayaanna hala sii daayo ma tolkiin ma rabtaan inaad raacdaan orda dareera halaya haddii kalena galbeed ha loo bedelo hargeysa iyo wajaale iyo meelaha kale ha la geegeeyo ma fahmaysaa kuwa idinla jooga idinka qaadaya wayna ogeyn eedheerkii markuu dhacayay kuwii xamar jooga siyaasiyiinta maalin walba sir bay bixin jireen halkaasay maraysaa haye maalin walba baa goosan jiray waay dee tolkood bay raacayeen dee kuwana tolkood bay raacayaan ceebna maad samaynayaan xitaa kuwa siyaasiyiinta xitaa kuwa wasiirada ah dee danbay kuula joogaan walaalo danbay kuula joogaan waayo laba qof haddaanay keenaynin oo aanay maanta dalkiisii keenaynin soo dan kuulama joogaan haa danbay kuula joogaan war hala feejikadaan idin leedahay aadna wadiin salaamaya salaamullaahi calaykum